حتى سيرنا وحكوت على في السنن قال لما مركي الله سوق بتنقارك والنبي يقول حول جري المسجد كل حرة ثمامة بن عثال كمدا في صحيح البخاري رحمه الله سري النبي قدري مرقا سنين قا سوق بتان مرقا سنين النبي الله كاني ما قدرنا سنين ما قدرنا إنه وثمامة بن عثال وملك اليمامة هل قال يقول حرة يقول المسجد كل حرة يقول حرة ساجد كواجل مركاسا halkii baa lagu dhaxay markaa nabigu reerihiisii u tagay cunto uga soo qaaday hashii irmaaniga nabiga noo maalay caanaheegina uga soo qaaday markaas nabigu halkii ugu keenay oo hawaa oo nin xidxiran markuu cuntadii siiyay oo caanaheena ka bisiyay buu ku yiri ya Thamaama iska soo islaam markaas uu ma islaamay buu in taqtul daadamin wa in تنعم على شاكر وإن تريد المال فسل ما شئت بكير يا محمد هذا أنا يدشد بكير نندي جيس دولك ودع يميه طلبة يقدم بيقولي هذا قال لي ستنا ما أنتم حريقة يسي دي سنة نن أبا العليان هايبون أنه وأنا أبا القدي هذا المال يبدي دون سنة شيء واحد أنتم وفصينه لكن حريقة يسي ده مرقاب النبي عليه الصلاة والسلام وحكويري مي كما سيديني نبو كيري هذا كيبو هالكي كبريي عشدي النبي هذا لو كان حشي النبي عنها وكم عليه يسلم وكم عليه أي النبي عليه الصلاة والسلام يسلم أيوه كان عنه مرقاس كعلي هذا نقول اسك الإسلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي أن قال أو مشركة caanihiisii intuu keenay siinaya xeradku ku casheynayna intuu soo qaalibu hordhigaya markaasuu weliba u khidmaynaya u adeegaya uu leeyahay soo islaam muxuu nabigu ninka la magan yahay inuu naar ka badbaado masab ka dooni maayo lacag ka dooni maayo shuhrad ka dooni maayo waxa kaliya ninka nabigu ka doonaya waxa weeyaan inuu soo islaam markaasuu ku celiya haddana yaa Muhammad haddaad idishid dhiiggaygu dhulka u dhici maayo waa layga dambeeyaa buuri haddaad igalladaysatinna maanta ood isii daysid ood xarigga iga sii daysidna nin abaal celiyaan ahay buuri anigu ma ciyaar nin kaftabaya ma ihi buuri abaalkaaga waan gudi haddaad adduunyo doonaysana xoola waxaa doonaysa i weydiiso madax furasho waan ku siinaya xarigga iga sii daa markaabuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi may markaasuu dee waa hagaag aniguna ma islaamaya buuri haddana maalintii saddexaad sidii silay buu nabigu ninkii ugu khidmeeyey xeraadkii buu u keenay caanihii buu u keenay markaasuu yaa Thamaama iska soo islaam sidii uu isaguna ku jawaabay markaa buu nabigu saxaabadiisii ku yidhi dilkiisu waxbay noo tari maayo xadhigga ka sii daaya iska socday buu yidhi sii daaya markii la sii daayey magaaladii Madiina ka baxay baarihii baar ka mida buu galay ceel ay lahayd buu biyo ka soo dhaansaday uu ku soo qubaystay oo uu soo maydhay masaajidkii nabigeena uu ku soo noqday isagoo oo leh ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluhu usalli ya rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markaa buu yaa rasuul allah diintaadan diimaha ugu necbaa laakiin maanta laga bilaabaa diintaadan diimaha ugu jecelahay dalkaagaan adduunyada ugu necbaa magaalada Madiina ayaan magaalooyinka ugu jecelahay wajigaagaan wajiyada ugu necbaa maanta laga bilaabana dadka ilaahay abuuray adaan kugu jecelahay buu ka yidhi maxaa bedelay ninkaas saddexdii maalmood ee masaajidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku dhaxidnaa masaajidku waa meesha raxmadda ilaahay ku soo degayso waa meesha malaa'igtu ay imanayso waa meesha muslimiintu ilaahay ku xasuustaan waa meesha qofkii soo galaba loo dambi dhaafo weeyaan waa meesha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu u doortay in ummadiisa uu ku tarbiyadeeyo haddii dad diin la barayana ahdiga nabigeena masaajidka nabigeenu ku bari jiray haddii dad la islaaminayay masjidka lagu islaaminayay haddii jamaaca la diray masjidku nabigu ka daraayay haddii wafuud nabigu qaabilay masjidku ku qaabilayay laana masaajidku waa aqalka ilaahay meel cid kale loo nisbaynayo maaha fadhiga aad fadhiisatay baad ka faa'iidaysan iska daa wacdiganba wacdiga waa dad way sheegayaan xataa haddaad waxba ka fahmi weydo fadhiga masjidka aad fadhidaa ilaahay kugu naxariisan
laakiin dadkeena maxaa fadhigii maskiidka ku adkeeyay maanta masaajidii waa mahjuura waa laga hijrooday halkee camiran maqaaxyaha camiran maanta majaalistii qaadkaa camiran meheradihii adduunyada ayaa camiran 24 saaca adduunyada meelweeg waa macmuur laakiin masaajidii raxmadu kusoo degaysana waa mahjuur maanta axabu lbilaadi ila allahi almasaajid dhulka ilaahay meeluu ugu jeclaa waa masaajida meelihii ilaahay ugu jeclaaba naftu ka hordaysaa maanta oo nafteennu ay ka didhaysaa meelihii ilaahay arlada ugu necbaana nafteenni maanta way ku xasilaysaa maxaa bedelay ninkaas saddexdaa maalmood masaajidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam khayrkii uu ka maqlaayey khayrkii uu ka arkaayey acmaashii masjidka nabigeena saxaabadu ay ka qabanayeen ayaa noloshiisa ilahay ninkaa ku bedelay markaa buu yaa rasuul allah cimraan u socdee maan u sii socdaa mise waan iska noqdaa markaa buu nebigu uri maya oradoo cimrayso laakiin wuxuu nebigu markaa uu sheegay arkaantii cumradu uu sheegay ilaa cimradii iyo xajku waa soo jireen zaman jaliiligii carabtu xataa way xajin jireen wayna cimraysan jireen markaa buu nebigu u sheegay arkaantii cumrada sidaa iyo sidaa iyo sidaa markaasuu maka soo galay waxaa la yidhi waa saxaabiga ugu horeysay magaalada maka soo gala isagoo mulabiya isagoo le labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulku laa shariika laka waa saxaabigii ugu horeysay ee talbiyada islaamka la yimiday tawxiidka la yimiday ee magaalada maka soo galay buu ahaa Thamaama radia allahu canhu quraysh ayaa markiiba ku soo ururtay waxay ku yidhaahdeen waxaana soo gaadhay Thamaama inaad diinteenni aad ka baxdeen maxaa ka jira markaasuu yidhi marka horeba diin maan haysane diintii nebi maxamed uu la yimiday baan raacay buu anigu salaamada dakhaltu diina muxamed buu ka yidhi diintii nebi maxamed uu la yimiday ee islaamka ilaahay loogu soo dhiibay ayaan anigu maanta laga bilaabo aan ka mid ahay ehelkayga buuli taad sheeganaysaana horaan uga baxayba markuu cimraystay oo lagu dhici waayo limaada lana ninkani waa boqor xintada laga cuno xinta shaciirka laga cuno dalkiisu ka baxa quraysh way taqaanaa markaas waxay sidaadii ninka ahay nagu taabanina haddaad nagu taabataan dhaqaaluhu naga jari mar alle markuu cimradii dhammaystay isaga u yimid oo ku yidhi qurayshay dhegaysta maanta laga bilaabaa xinta xabad xinto shaciira dalkayga inaga imani mayso ilaa nebi maxamed oo amar isiiyo u sii daa igu yidhahda mooyaane imaa ininkuu diinta islaamka soo gala mooyaane labada waxba kama dhexeeyaan buu yidhi waa ninkii ugu horreeyey baa la yidhi islaamnimada daraaddeed quraysh u saaray xisaar cunaqabatayn imika cunaqabataynta ayaa la saara hore yaa saartaa islaamkaa la saara maxaa laguu saarayaa laana adduunyadii baad jeclaatay adduunyadii baad weynaysay waxay gaaladu caabudayeen baad adiguna la caabuday marka way kaa adag yihiin ogow khadkoogii baad gashay markaasaa markii uu dalkiisa ku noqdayba qoomkiisa way wada islaameen markaasuu yidhi magaaladii maka shaciir ha u dirina buu yidhi xinto ha u dirina buu ka yidhi ka joojiya mar alliga markii ay maqleen reer maka ninkii uu ka joojiyey raashinkii badeecadii baad ascaarteedii baa kacday markaasay qurayshi nabiga warqad u soo qortay ku dhawarayaan ay leeyihiin yaa muxamed diintaadii ma waxay ku faraysaa inaad riximkaaga aada goysid ood gaajo ku dishid markaa buu nabigu maqlay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi Thamaama binu Afaal buu nabigu warqadda qoro wuxuu ku yidhi tolka ilaahay baa soo hadayn doonee inooga sii daa buu ka yidhi raashinka u sii daa masaajidku saasuu wax u bedelaa uma tarabba fi lmasjid nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ragga taariikhdooda maanta caalamkooda laga wareeray ee la leeyahay hadday raggaasi adduunyada mar labaad iman lahaayeen mashkiladda caalamka taa laga kaaxlin lahaa bay yidhahdeen gaaladii lalahaa waa indheer garato waa khubara lagu sheegayey warkoodu wuxuu ku soo ururay inay yidhaahdaan cumar binu khadaab ninka la yidhaha hadduu caalamka maanta iman lahaa mashkiladda caalamka taalla isagoon ba xallin kari lahaa
markay akhristeen siiradii cumar xagee ka soo baxeen raggaasi ayna taqarrajuu wallahi cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina madaaris qur-aanka laga bartana may lahayn macaahidna may lahayn jaamacadana may lahayn meesha ay ummaddu wax ka baratay masaajid buu ahaa masaajid meesha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu ku tarbiyeeyey masjidun baaxid